وامحي xigmadu waxa lagu qeexaa kartida aad u adeegsan karto aqoontaada iyo khibradaada si aad u samayso go'aano wanaagsan oo wax ku ool ah waxa laga yaabaa xigashooyinkan inay kugu dhiirigeliyaan inaad tahay qof aqli badan laakiin ugu muhiimsan ficilada si aad ugu noolaato riyadaada saynisku waa aqoon abaabulan xigmaduna waa nolol habaysan aqoonta naftaadu waa bilowga xigmadaada oo dhan xigmada kaliya ee runta ahi waa ogaanshaha inaadan waxba aqoon da'daada ku xisaabi saaxiibada sanadaha ma aha noloshaada ku xisaabi dhool cadayn marnabaha ooyin ku adkayso riyooyinkaaga waayo haddii ay riyooyinkaaga burburaan noloshu waa shimbir baalasheedu jajaban yihiin taasi ma duuli karto sirta nolosha si kastaba ha noqotee waa inay dhacdaa 7 jeer iyo inay kacdaa 8 jeer qof ku baro waxa uu galo ku qiimee waxa uu gudo kuna qadari waxa uu yahay sidoo waqtiga isku bedelo ayay dadkuna isku bedelaan horaa loo yiri noloshu sidaad moodin ma aha waayo waagii baryaba waqtigu cusub uu la yimaadaa cid walba ixtiraam laakiin cid walba ha aaminin iska ilaa wixii hore laakiin marnaba ha ilaawin casharadii aad ka qaadatay ma jiro qof dhammaystiran dunidan qofba qof ayaa u ah ruuxii u buuxin lahaa booskii ka banaanaa sidaas ay tahay waxaa jiro ruux aan ku fahmaynin si walba oo aad ugu dhowdahay una jeceshahay dabiibkiisa وحليمه حيس جالسة حقق وقتي كحرنجي إيجو مالحور عكن كونا نار كحريو